wixii baan ku duubnayn anigu nin maalqabeena baan dunidan aad arkayso farq baan saa ugu wareejin karaa afarta koorniyo afarta kaaraba la hadal haya naamuraayadahan balbalaadada afarta geesle ma adiga daawan iyo noocan smartphone-ka la yiraahdo alla ma walaal wali aw salaax leeyma iibin war kaalay ma inta xoolaayigi macal ku yeelata naga u sheekaynaysa war maanad afka litre la soo doonanaysa kii ila hadli lahaa adduunka kamu dhalanayso kansar maanta inoo tahay qaba shaadhko ka carru wiskiis iyo kugu daadanay war maana laga haya waxaan ilka biciiri falay kaalay waalidiinta wax ka baadhe war kama buuxsan hana ridin waxaan joorad lahay baato bilaa sale war xaajiga hadrin xiniyaala ku qabaya in adeer maantuu baan ku bariye kada balinta calooshu leegatay xoolaayigi buu ku naaxay qori buu ahaa markuu naga qaatay xagaad xoolaha ka keentay hooyada iyo aabahaba cayd bay kugu dhaleen waad arki doontaa inay cayd ugu dhalaan inaan kaga kawsiyo in adeer xaajida nabad ku celi xoolaha waynu ka qaadaynaa xagu xoolaha ka keenay weligiiba shilin ugu mahagaagino tayra madmadow baariyanaye u kaada xaaji basaro ninku ka xoog weeye u banne talo ma ku dhuftaa ka raacde yaad wax ku dhufanaysaa markii hore maad wax iska celisid intaan iska celiyo wallaahi darbadaan kugu dhuftay inaad la tahay walaal aniga igu dhaaf ilaahay baa kugu dhaariyay namari warna mari naga kaxay waaye waana lagu ka salidayaad naga qabanaysaa feer jilibkaan ku dhufto 7 sanadood buu baarlays ahaan la war naga daafaanka waad gisidii saxar la fufay duula xaaji basaro hadii waagi hore lagu liidi jiray maanta hada magaalada akhtar u bedeli kara waan gartay in adeer hadalkaagu waa la xameysay maanta niyow la xanee ma waxba adiga qodqodaysa hada soo wada bax xaasha wax quraac ka weyn maanta kuma soo talageline haye niyow aan warka fadka iyo feedha ka cadeeyo magaaladii baa soo egtay oo 6 iyo 2 igu celisay waa gartay safrad baa saay dhibaynayso naftaan kugula soo eertay koow bari baa nin baadi doona baa gaajo dhiman gaaray sakaarada daayo qoolayda xalaal u ahayd waa koow isagoo tii ugu dambeysay baa wuxuu ku baxay niman meel fiid ramad ku maalaya garanay waxba yaan hadalka kugu daalina hadhub labada gooti saa xoorka uga daadinaya u dhiibeen waka ninka oo ay baahi badan haysay awgeed baa caani ka laacay markaana xilliga dogaadana gal xoor badan buu leeyahay wuxuu arkay hadhubkii xoorku kala barka joogo dabeed ninka hunguriga xunna barigii hore waa sheeganay wuxuu sii farsamada xoorka ku cabta keen maqalnay dagaal baanu galay buu dagaalkaasi waa mid faraa iyo cidiyaaba la isla tagay oo dubka iyo diirka dadku kala mudhaday aragnay arrin buu keenay markaa uu nimanka wax ugu sheegay isaguna aanu ku ceeboobin muxuu ahaa wuxuu yiri intuu hadhubkii soo qaatay barigaan yareyn waa nala gilgilay buu yiri ku darso hada ninkaasi hadhub ku gilgilaya xoorkii hareere ay joogay oo dhan buu isu geeyay warkaas hay mara intuu dabada dhulka ugu dhuftay buu waa nala gundabay mala sheekada waan kala fogaaday soo yara durkee hadaa doonto la sii fogowba waar fogaan ma yarag waa iswaacensadaane dabeetana wuxuu yiri afkaana la gashaday xoorkii uu markii hore suururiyay buu liqay mar qura waa haye raggi ninkii si fiican bay u fahmeen oo hal dambe u soo liseeno hoora gocor liita mooyeen raggi fahangodkaagaasi niyo waliba magabay baad ku dartay il iyo inkaariba way jirtaa gawsaa u tudho sheekadii ninka inoo socotay waliba ku darso ninka ragga galo malay col bay ahaayeen waa runta niyo dana fahantay hada wax dhaqaaji maxaad naga soo eegaysaa wuxuun baad heli kolad blade ka murdisanay iska sug maad ka daysid sida lama amaanayne waxba yaan la soo amaanin waan ku fahmayaa waad ila kaftamaysaa yarkan dambana baraankiga waxba yiraahdaanba warkaasi wali ma soo gaadhin baraankiga iyo waxaad ka sheekaynaysaa wallaankan waxba laga sii jiidayn baan u malaynaya ho laftan mudmudso ursabal hadawdgoonkeeda yaraantaydii baan ku tabcaday adeero waan raaxaysanaya adiguna waa adiga lafa burbursanaya sida dhurwaaga niyo sheeka igu soo dhacday bahashan mukulaasha la yiraahdaa maxay dibka la dhaqdhaqaajisaa markay wax doonayso dibka ma ahayd hunguriga dhaqdhaqaaqa ma tiraadid Soomaalidu barigii hore ee martida qadisa ceebay ahaan jirtay nin gabadhiisa salugay baa yiri mudhuuqiyay madhaadhaqiyay martida qadiyay ma jiirka miyaanad garanay aniga taasimo qusaysan ninka lahaa bay u taalay aniga gabadhayduna waa gaariyo waxa aad arkaysaa bay roosaaqisay adeer barigaad guursatayna umada wax kamaan cuninoo haddana ammaantaan magaalada ku galiyay ilaahay un baa oga waxa nin xaaji basar la yiraahdaa baa guursaday oo magaalada akhtar iyo casaan wada socdo ka dhigay nasoot spider-dana waxa ninkaas buuq uma baahna inuu gacanta wada galinay ka daafara maxaa farahaaga ay keenay yaad isu bikiranaysa halkan orod nagala tagis bihinta ka shaqaysanay digaaga ma cuno baa laga yiri waxriyaanay gabadhuna ina maqline ma waxba ka siiyaniyo ma waa saxdii niyo buuga naxariista noog iimaanka la ka qaadiyo gaajan u liidanay u dhimaba hada doonto hortay balaan mar qura un daro waxaan kugula hadlayaa maxadiis baa meelan kula hadlayn meel dhagahan waxaan ka soo jeedaa deemaye warka ka bax iska foolatay ya ka dhalin maradan hurgufaya waxaan kaariyo kuleyl kala garan waayay bay hayaa talo Maxamed baa
xumadu halkay joogtaa dama iimaanka dhulka kaga soo dhacay wallahi isagoo cas haduu halka galgalanaya baan ku qabanay oo waayo niyo wax maqsanid ahaa oo manaxariis bay naga dhaxaysay meel walba miyaanad faraa iga gelin oo godkii aan galaba aan adiga saarin howlafta liqad hore ugu dhimatay awalba dadka laga soo daba tuuray maxaad iga soo eegaysaa leef waa intaad marq yar ka heshaay bal iska kaan malaa meel maran waa dhaantaay niyo maad wax naga siisid waxaad laba liqayso waariya waa ninka waxaan laba liqayo hooyada baale waan ku asxaan sameeyay cun haday dan ku tahay inaad arinta yar si tolba laga helaaye waxa ayaa ka qoraya ku soo fadhiiso waa fardhaxo kale kugu fogaan mayse bal waaya lafa ugu roono yaba ka dari maayaane hoo baaruda teeda qiiqda lafaha ka dharagniyow inaan gumeed baa tahay ay raganimadu ftada kaga taal waxa ayaa lagu maxamedsada adiga wajiga waxa ka saarnaatay si daadeer niyow bahal cawri la yiraahdaa baa jirta baa la yiraahdo Soomaalidii gaagoon tirtay bal waxa rusheeye yara soo baxayday hoo lafaha rusheeye yaraad maqashay rusheeye weynaba waa joogay naw waa nin iimaanka ka diyaaradeeyay baan ag fadhiista ku dul saaran yaabay waa kiilaha sin xigaad murdin doontaa balan iska sugay wallahi inaan kan mid isku yaala laga qaadayne murdiska aad sheegtay isaga hadal ka jooga waar kolay waxa ay diidimaysaa dadkii caadiga ah iga ceshatay inaadeer maxaad tiriiminka waarorod nagala tag beer nugeelka bahaliyo ay jooradu nabadgeliyay waxaanu kula maaganahay baanad ogeyn adiguna niicibaad nala soo doonanaysa xabkaas iga fudud intan madaxaaga gooyeen diyaaradaha Turkiga oo si duulaya si saaro nin lamood baa tahay aan ku soo qaldamay hadaan xiradaada cirka madowkoodi waa dharabka ciyaal ay ma yiraahdo xagga sareenta adiga marto igu soo kaadi ama buurta soo fuulo igu soo eedan balnaad wax iga qaado bahal iimaan la baa tahay raganimo aqoon saacada dhan buu hunguriguna dhaqdhaqaaqay laakiin rag waa kaan beer dabcina way noo tahay waqti kale inoo ahaanaysa ninka xaaji basartu igu sameeyay ilaahay uun baa ogaa wayna gabadhiisa ku qabsataan soo laabtinima sidataan waanu sidanaa ninkan baa gabadhina iska celinaya hadal kale loogu noqon maayo bes waxa kale aan ku sheegaya ragan burburan waa laga cabtaay gabadhu waa inay ducaysaa ninka kan isma naqaanay soo inoo goliyeed maaha waa xiniyo birlees nacay waa si wanaagsan iskaabulanima idin dishay xoolaha tolka dhaxgalo aniguna hay soo gudbina xaaji basarna waa nooca caloosha waaweyn oo fud saaran baa la yiraahdaa waa bilaa faakahaysi xaaji basar oo laba aan ku wada laba muqmada aad ku kaliyeysatay waa lagu la cuni doonaa toygan maanta waxaad ibaday Soomaad ogeyn hadaan kaadidaada kalax ku shubi waaninba waanan ahayn soo socda day hada sidoo ii soo eegaya waxaad moodaa in xabaal laga soo saaray martaad baratay mulkiilayaashii baan ku wada guriga ilaa dalqada socon lahaa markaasuu ilmada hooriya sida agoomeede wax garadka yiri rag walaalo wuxuu ku dhaaman la waaye muxuu hadalku kaga soo bixilay